kulan wacan oo wanaagsan saaxiibayaal halkan waa Warsan TV markana waxaad ku soo dhawaataan warbixin ka hadlaysa ciidamada ADMIS oo lagu amaanay howlaha shaqo ay ka wadaan Soomaaliya xogayaha joogtada ah ee wasaaradda difaaca Uganda iyo sidoo kale dhigiisa wasaaradda arrimaha dibadda Uganda ayaa si wada jir ah u shirgudoomiyay kulan ay isugu yimaadeen xogayaasha joogtada ah taliyayaasha ciidamada difaaca iyo saraakiil sarsare oo ka socday dalalka ay ciidamada ka joogaan Soomaaliya ee ku jira howlgalka midowga Afrika ee ADMIS shirkan ayaa waxa loogu dooday warbixino farsamo oo lagu meel marin doono shirka ay yeelanayaan madaxweynayaasha dalalka ciidamada ugu deeqay howlgalka nabad ilaalinta midowga Afrika ee Soomaaliya kaas oo ka furmaya magaalada Kampala shirkan ayaa lagu bogaadiyay dalalka ciidamada ADMIS ugu deeqay kuwaas oo lagu amaanay in ay door muhiim ah ka qaateen nabadda amniga iyo xasiloonida Soomaaliya isla markaana ay ka qayb qaateen isbeddelka siyaasadda tababarada iyo in la xoreeyo goobihii ay maamulayeen al-shabaab xogayaasha joogtada ah ayaa hoosta ka xariiqay in loo baahan yahay dadaalo wada jir ah oo heer gobol ah oo ku aadan la dagaalanka waxa loogu yeero argagixisada. During the US Africa Summit in December 2022, His Excellency Hassan Sheikh Mohamud, President of the Federal Republic of Somalia, requested His Excellency Yoweri Kaguta Museveni, President of the Republic of Uganda, to host the Heads of State Summit of the troop contributing countries to the African Union Transition Mission in Somalia, ATMIS, to discuss the status of implementation of our mandate and come up with resolutions on the way forward. That's why we are here. And as a staff, waxaa ku nuuxsaday in loo baahan yahay in si wada jir ah loogu diyaar garoobo isla markaana waqti ku haboon loo diyaariyo geedi socodka dhismaha ciidamada ADMIS wuxuuna hoosta ka xariiqay baahida loo qabo in la helo agab loo baahan yahay marka la fulinayo dhimista ciidamada ADMIS.